barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo ayaa kulan la yeeshay gudida gacanta ku haysa dugsiga farsamada gacanta ee gobolka Togdheer. Kulankan oo ahaa kalfadhigii shanaad ee yeeshaan barasaabka gobolka Togdheer iyo gudidani ayaa waxa warbaahinta la hadlay Jamaal Warsame Xinwaal iyo Hinda Maxamed Jaamac oo kamid ah gudida dugsiga farsamada gacanta iyaguna faahfaahin ka bixiyay kulankani iyo waxyaabihii uu qabsoomay intii ay gacanta ku hayeen dugsigani. xafiiskii barasaabkan fadhina waa shirkii shanaad aan sugnimada sidii noola asaasay hawl badan baan runtii qabanay afartii shir ka horeeyay waxaanu shiraa maalin kasta oo khamiisa waxaanu soo qoray xeer hoosaadkii waxaanu soo qoray dastuurkii meesha waxaanu soo qoray MOU-gii oo trafa maanta xafiiskan barasaabkan nimi waxyaabo badan baan ka wada hadalnay arrimaha security-ga arrimaha fundraising-ka arrimaha siyaasadda meesha lagu wadaayo waxaanu sugaynaa runtii inaanu Hargeysa cid nooga timaado waxay imanayaan insha Allah bisha July dabayaaqadeeda ama bisha August horaanteeda qolo jarmala la soo diray oo experts loo professor baa soo diray meeshay waxay imanayaan burcay imanayaan marka waxaan ka wada hadli doonaa runtii fundraising-ka samayn doonaa ka wada hadlana security-ga ka wada hadlana in soo dhaweyntoodana ka wada hadlana waxyaabo badan waxaan ka saan ka wada hadlana wasaaradii baa la socota wasaaradii tacliinta la socota wasaaradda tacliintana waxaan saddex qolo markaan soo nimaadno runtii waxaan soo saareynaa hawl dhamaystiran insha Allah gudidii Burco Institute-ka la magacaabay baanu ku joognaa waana shirkii shanaad aan isugu nimi wax badan fikrado badan discussion badan hawlo badan baanu isweydaarsanay sharcigana wuxuu ahaa markaanu afar jeer shir sanaadka inaanu nimaadno gudoomiyaha gobolka aanu la socodsiino sidoo yihiin sida la idin sheegayna imika aad iyo aad baa anaga hawsha meel fiican oo maraysaa waxaanu sugaynaa sidii aanu bacda rabada bacdaliidka aanu soo arki lahayn wasaaradii iyo wadanka gobolka iyo dhana oo next step-kii laga hadli lahaa baahiyihii iskuulka la soo bandhigay fundraising-yadii iyo communities-ka iminkana waxaanu aad iyo aad u wargelinaynaa cid allaale cidii iskuulka dibadda iyo gudaba joogta inuu iskuulkii dawladdu u diyaartay wax ka qabato shacabkina diyaar u yihiin qurbo joog iyo dadka wadankuna ay la socdaan iskuulkaasi in loogu talagalay. barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha dugsigani oo ahmiyad weyn ugu fadhiya bulshada ku dhaqan Soomaaliland. wax wanaagsan bay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudida ama boardka Institute Burco xeerkoodii zero draft-kii oo ay soo sameeyeen wax la wixii loo baahnaa oo looga baahnaana way diyaar gareeyeen saa idin sheegeen Jamaaliye idin sheegeen iyo waxa iman doona laba professor oo eegi doona feasibility study ku sameyn doona waxaynu uga baahan yahay inaga waxyaabihii kala hadda tiin ama qurbo joog ama dadweynaha danaynaya inuu iskuulkaasi dib u soo noolaado technical institute-kii aanu Hargeysan ka baxay laakiin waxaad moodaa dadka inta cayaantee ugu firfircoonay inay ka baxeen iskuuladii farsamooyinka gacanta waxaan ku dardaarayaa inta dibadda joogtay inta gudaha joogtaba waxa weeye halbowlu u yahay waxbarashada gobolka ama Soomaaliland baa iskuulkaas technical institute Burco marka waxaan jecelahay inaan hadday noqoto fundraising la sameyn doono ka qayb qaadataan hadday noqoto wax kasta oo ama mishiin ama wax ku caawisaana waalid ka sugaya insha Allah biidnillah. si kastaba aatee bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo dawladda Soomaaliland oo dareemay baahida loo qabo in la helo dugsi farsamo ayaa waxay muddooyinkii u dambeysay ka howlanaayeen sidii dugsigani uu shaqayn lahaa isla markaana uu noqon lahaa mid taabo gala. Shaafici Maxamed Ibraahim, shabakada wararka ee Caalam News, magaalada Burco.